horta doctora waa mahadsan tahay. Boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsan tahay. Waa yarkii joogay Nairobi. Horta aniga waxaan markii hore ka cabanayay waxay ahaayeen ilmo aan dareemay. Horta raganimadaydu boqolkiiba boqol way fiicneed oo wax weeye ma qaldanayn. Waxa bisaan dareemayay in dee shahwadu marka koowaadba ay si dhaqsiya ku imaanaysay. Ciladaas ayaan horta dareemayay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Markii aan qaatay daawadii muddo koowaad, horta isbeddel aad iyo aad u muuqda ayaan dareemay. Haddii iga sii dhammaad iyaduna ay tahay waxaan go'aansaday dee inaan midii labaad qaato, kuna daro midda saddexaad. Soomaaliduna dee waxay fahantaa dee markay aragto waxa muuqda iyo dee caafimaadkii iyo waxtarka daawadu ay leedahay. Marka sidaas la adligeed qofku wuxuu dareemi karaa markuu wax qaato ama wuxuu isticmaalo ama uu fahmo caafimaad ahaan iyo jawi ahaan intuba waxay u leedahay. Marka qofku wuxuu wax dareemaaba waa markii Soomaalidu waxay taqaanaa wax tusiyo taabsi. Marba haddii daawadu herbal tahay aysan wax chemical aysan ahayn, dee inay wax caafimaad ka helayso waa wax iska muuqdo. Dee wuxuu waa dhirteeni Ilaahayna siiyey annagaan fahansanayn dee kheyraadka ku jiro iyo daawada iyo faa'iido iyo anfacada inta ay leedahay. Marka doctora boqolkiiba boqol daawadani waxay leedahay waxtar aad iyo aad u fiican qofkii Ilaahay ku daweynayo oo siday tahay u isticmaalaya oo dee aaminsanba qofku inuu wax caafimaad iyo dawo ku helayo. Marka waxaan dhihi karnaa daawadani waa tii Ilaahay dadka dee u soo dirayo dhallinyaradaba intaba. Marka doctora adigana kheyr badan Ilaahay ku siiyo. Jazakallah. Dadka waxaan aaminsanahay inaad u hayso shaqo aad iyo aad u muhiimsan oo dee mudan dee in laaga mahadceliyo. Dee qofka bini'aadanka wax u qaalisan ama u muhiimsan waa daawada uu qaadanayo iyo waxa faa'iidada uu helayo. Qof hadduu mar caafimaad haysan dee adduunka dhan baa la siiyo dee wax u taraysa ma lahan. Marka jazakallah aad iyo aad mahadsan tahay.